والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت إلهي ما الله سبحانه وتعالى إلهي بكلام الله مركو رئيسا وحان هنبلي ودريا ciidanka qaranka Soomaaliland soo majeedayaasha geesiyada waxaa la hawada garab taaganahay insha Allah taala guushina degdeg bay u iman doontaa. waxaa kaloo iyada isla meesha taxsiideynaya dhalinyaro badan ayaa doorkan aad u dhintay. samir ilaahay naga siiyo ehelada ilaahay samir iimaan ka siiyo. waxaa intaa yaraaco waxaan abiir u dirayaa dowladda in sicir bararka xoog loo saaro si ummadda maciishadeeda loo ilaaliyo noloshooda. intaa waxay raacdaa waa ogtihiin cadowgeeni propaganda iyo been ayuu adduunka la maraya. Somaliland horta waxaan ugu bishaareyn reer Somaliland باذن الله الكريم xuduudeena dhaqsan u tagana dhalinyarta ciidamada tadawuc u gashay waxay guuleysta waxaan jeclahay la wadaagaya taariikhda reer Somaliland ee dhulkeena. inagu Ingiriisku markuu inaga tagay dalkeenu wuxuu lahaa 6 degmo iyo 2 sub district. Laasqoole sub district, Erigaawo district, Laascaanood district, Burco district, Berbera district, Hargeysa district, Saylac sub district. sidii dadka reer Somaliland walaalihii ay ugu kala badnaayeen loo kala lahaana ee laga soo sharaxi jirna waa la yaqaan. Soomaaliya waxay 6 gobol waa ahayd gobolka Majeerteeniya, gobolka Mudug, Hiiraan, Banaadir, Jubbada Hoose iyo Jubbada Sare. sidii loo kala deganaana waa la yaqaan. Maxamed Siyaad Barre yimi wuxuu Maxamed Siyaad sameeyay 18 gobol waxa ilaahay sameeyay. wuxuu sameeyay 94 district degmo sameeyo mid qol aan ahayn ama bi ahayn tuulooyin 94 ka 27 reerkoodu si 12 Soomaali inta kala u qaybiyay. meesha reer Sheekh Isxaaq hal xabo Muuseen hal xabo horta buugan halaag Maxamed Siyaad Barre G21 ay wadaan waa buugi Maxamed Siyaad Barre waa ka Jubaland sameeyay waa ka Geeda sameeyay waa ka Majeerteeniya sameeyay waa buugi Maxamed Siyaad Barre uu ku socdo Soomaaliya laakiin Soomaaliland ku socon maayo. taa ogaada marka ma ka samayso ayni Soomaaliya sanaag lahow taas socon mayso. waxa dawladooye doonina wad ogtiin maanta Soomaaliya ay ka taagantay magaalada gaalka la ilaaho 2 taariikh ka shaqeeya taariikhda galmudug iyo taariikhda Puntland waa magaalada gaalkacyo. waa ogtiin ninkii maaha khaatumo waan اعترافay waqooyiga gaalkacyo ma tegi karo iska daa Kismaayo iyo Baydhabo wuxuu inaga filan yahay wuxuu ka soo jeedaa dadkii geesigoodii Maxamed Siyaad Barre dalka ka saaray aydiid gacantooda ku dilay ay horta weeyay. laakiin anagu waxaan leenahay shacbiga weynaha uu ka soo jeedo ixtiraam bay nagu leeyihiin mana qaadi mayno
qaladka isay wadana ninka la yiraahdo Cabdikariim Xuseen ee la baxay oo qaysamaha dowladda federaalka arrimaha Soomaaliland la baxay xitaa magacii fiika ahaa bedelay ahaa wada hadalada Soomaaliland xubnaha qaadimaya Soomaaliland wax yeeli kara ma jirto waxa shacabka reer Soomaaliya waxaan leenahay hawarwarina waan leenahay way jirtay 88kii mar baa dhiigeen lagu tartamay si qol kastaba leesan ku qaadato oo bariga way bariga kala bixin aw sheekhaashtii ogaadeenku aw ogaadeen bal isku oran jiray maanta wada ogto waxa la yiraahdo inaynu dhimanayo qofka soo inoo saacay magac kooboyn waxaanu maqal laakiin waxaan sheegay ragga durbaanka qabiilka ciyaaraya ee tolaya daarada leh wada noolaashii Soomaalida ay ku wada noolaayeen iyo ehelnimadii iyo xididnimadii khatar baa gelinaysa Soomaaliland waxa waxa ka wadaan socon mayso laakiin waxay ka bilaabi kartaa kilka shanaad ka bilaabi kartaa Kismaayo ka bilaabi kartaa Muqdisho ka bilaabi kartaa laakiin Soomaaliland laas qoray ilaa iyo loo yacdo family baan nahay culture iyo values leh oo islaamiyana shacabka reer Ascaroodna annagu oo walaaladii waa abtiyaashii way helkiyeen wax yeeli mayno laakiin fidmadu halka ka timi waan abaari waan isdul taagay insha Allah ta'ala garowe maanta kamid way soo taagno insha Allah sar taago diirad halkaas meesha la yiraahdo madaxtooyada qabiilka Maxamed Saleh ma sameeysan soo halka ma waan istaagno anagu Soomaali waxaan u tarnay waa la ogyahay Soomaalinimada anaga keenay Soomaaliya toos anaga keenay anaga u sadqaynay dowladnimadii si midnimada Soomaali loo helo indigoo reer baa u kala saartan Soomaali dadkii Soomaali baabiyay midnimadeedii maanta isku sheegayeen yihiin hooyadii Soomaaliya ma ragii maalinta la dagaalamay Ethiopia 27kii ee halkan laga dagaalamay ee cad halkan ay dadkii xoogay dabar jabina ku sameeyay inqilaabka abaabulay ee saraakiishii laayay si dadku isku jiraan soo qaada ragii asbataa ayaa maanta leh Soomaaliland ilmadaaniya Soomaaliland ilaalimiya history will judge you على سيد دخصة شركي بلقبلها الله قبض سيد دخصة الله قبض تبحوا قاطع إنه لمناه إنه إسكو هاي السنة ونكرسي أنا كاجا وناكسن يا أنا كاجا وناكسن إنه ده حيس واحد كذا إنه ده حينين هو إنه موتشنا أيون مدنا هاي يا وحيد حدينا وين حساب طبعا لكن ما أنت وحوي مدانتين وحوي إنه شرفتني سوعين هيبديني سوعين حدوديني تقنا بإذن الله الكريم ونقولنا أفريقيا تصارف يعني كتابك إلهي لا إله إلا الله يوحي نسكو إيجنا مريحاً فردها لغو سميستي فردها لغو سميستي هي كتابك إلهي يصنع رسولك عن تبروك هذا أي نسكو إيجتونا بل فردها يتوحيدك كحوغي استاه حق خد صعوده تاريخ ده الشيء دون وحنا رئيس Somaliland فاملي بيننا وإنه احترامنا ما كان دول كانوا كوسعونه حقوق بني آدمك يوضع النولاشة سيدنا مركي محمد سباري أن كأتكاني أين عطوبة نبتقلية إلا نوكودي وجيني إذا ماضي محمد سباري داكو كوبيري وتنبت سيني يعني سيب في عن كارستيو كله ما أنتنا وإنه لما عامل لها dadka inagu soo duulay ee qabiilka wada ee Soomaali biiska ya waa inaynu saayana insha Allah Soomaali Ilaahay badbaadiyo subhanahu wa ta'ala ayna Ilaahay xukaan fi aasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala hogaamo fi aasi
oo ilaahay ka baqay subxaana wa tacaala oo dhaqankii soomaaliya wanaagsanaa ee ixtiraamkaa ilaalin ilaahayna siiyo inaga insha allahu tacaala doorasho fiican ay noo dhacdo oo wanaagsani waxaan leenahay taasna insha allahu tacaala waan isbarbar wadinaa taasna waa ku footeynaynaa taasna dalkeena ku difaacina bismillahi karim wasalaamu calaykum